waayahan dambe jab xoog leh ayaa gaaray meelaha baktiyadoodu yaalaa goob walba oo aad maaragtaa oo social media aad aragto meedkoodaa waran dadka gaarsiiyey oo levelkaas gaarsiiyey maanta ay shabaabi iyo khawaarijtoodii iyo qashankoodii ay ka harsan waayeen ka hurdi waayeen oo ay la qaxayaan waa idinkoo kale waxaa sharaf inoo ah maanta inaan ku sugannahay magaalada Kismaayo gaar ahaan xarunta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtoodii kumaandooska danab waxaa xaqiiqo ah guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliskooda shaqooyinka ay dalka ka qabteen in shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay ku diirsadeen waxaa xaqiiqo ah in dhiigga ay bixiyeen walaalaheena wiilasheena gabdhaheena dhammaan xubnaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay miraha maanta ummadda Soomaaliyeed ay ku naaloonayso sidaad la socotaan dalka guud ahaan wuxuu ku jiraa dagaalkan eheluu leeyahay sida shay walba iyo maaragta wax walba oo laga shaqeeyo ehel gaara oo cilmi u leh ay u leeyihiin ehelka dagaalka waa ciidamada qarabka sida nimanka khawaarijta oo culmadeeni Soomaaliyeed ay ka fatwoodeen dhiigooda iyo maalkooda inay xalaal yihiin oo qarankeena guud ahaan sharcigiisa idin banaynayo in lala jihaado waxay muddo ay dhib ku hayeen ummadda Soomaaliyeed oo ay koow ka tahay cirdigooda maalkooda naftooda wax walba oo diinta islaamku xarimtay ayay nimankan khawaarijta ah ummadda Soomaaliyeed ku hayeen laakiin waxaysan xisaabta ku darsan inay jiraan dad damiirkoodu nool yahay waxay xisaabta aysan ku darsanin in ummadda Soomaaliyeed ay weli diinkooda iyo sharafkooda iyo dawladnimadooda inay difaacdaan dad u diyaara inay jiraan aynan xisaabta ku darsan waxaan rabaa xubin walba oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan uga mahad celinno inay doorteen in dareeska ay gashtaan nimankaana ay la diriraan waxaan idinkaga mahad celinaynaa oo idinku bogaadinaynaa inaad waqtigiina iyo naftiina iyo wax walbood karteen aad u hurtaan qarankiina waa wax aan qof walba ku dhiiran karin waa wax qof Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu waafajiyo iimaankiisu taam yahay wadaniyadiisu ay dhameystiran tahay kaliya qaban kara waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan ognahay duruufaha iyo cimilooyinka kala duwan iyo laga yaabo in aan wax walba u baahantahay inay idin dhameystirneen laakiin waxaas oo dhan ay ka muhiimsan tahay qalbiga iyo sida aad u jeceshiin dalkiina diinkiina iyo dadkiina taasna idinku daraaf garaynayso inaad naftiina aad u hurtaan oo aad ka shaqaysaan waxaa xaqiiqo ah oo culimadeennana noo sheegtay qof walba oo jihaadkan wax ku gaaraan oo uu maaragtay Ilaahay u hofsado inuu shahiid yahay qof walba oo ku dhaawacma dhibkaasi calaamadiisa uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aakhir la hortagi doono asagoo dhihi doono sharafka diinkeena iyo dalkeena iyo dadkeena aan ilaalinayn arrinkaas waxaad ogaanaysaan inuusan arrin dheedheela uusan ahayn waxaad ku jirtaan waa jihaad waxaad ku jirtaan waa wadankiina difaacanaysiin waxaad ku jirtaan waa khawaarijtii nabageena ka dardaarmay in dalkan maaragtaa laga saaro waayahan dambe jab xoog leh ayaa gaaray meelaha baktiyadoodu yaalaa goob walba oo aad maaragtaa oo social media aad aragto meedkoodaa waran dadka gaarsiiyey oo levelkaas gaarsiiyey maanta ay shabaabi iyo khawaarijtoodii iyo qashankoodii ay ka harsan waayeen ka hurdi waayeen oo ay la qaxayaan waa idinkoo kale haddaanan loo heli lahayn raggiinaan
waxaa laga yaabaa ummadda Soomaaliyeed masiirkooda maanta waxaan ka wada hadlayno kama aanan wada hadleen waa idin kaga mahadcelinaynaa khawaarij waxaad ogaanaysiin in dalkan laga saaro in aynan sahlaneen oo waqtiyo iyo maal iyo xoog ay u baahan tahay taa waxay nooga baahan tahay marka inaan isla fahansanaano shaqadaan hayna iyo qiimaha ay noogu fadhido inaan isla fahansanaano waxaan kaloo rabaa inaan idinkaga mahadceliyo deegaankan aan ku sugannahay shaqooyinka gaarka ah oo ka qabateen deegaankan jubbooyinka waa meelaha ay ku ilmo dhaleen oo ay maaragta caasimadahooda ku yaaliin inay ku harsan waayaan oo goobad ku hurdaan waan ka warhaynaa leejligiina darteeda iyo shaqooyinka aad ka haysaan gasi gaaraan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan rabnaa marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inaan uga mahadcelino jihaadka lagu jiro qaybta ay ka qaateen hadday ahaan lahayd inay maalkooda bixiyaan iyo hadday ahaan lahayd maaragta dhiigooda inay bixiyaan waxaan ognahay qof aanan mansab iyo wax gaar aanan ka rabin oo oday Soomaaliyeeda oo gabar Soomaaliyeeda oo maanta maaragta furmaha hore jiifta oo si ay cadowga ula dirirto annaga waaba dharka iyo waxaan u soo qaadanay iyo tababar iyo wax walbaan u soo qaadanay laakiin qof aan intaasba soo qaadan inay jihaadku ku jiro soo annaga marka lana kama rabo in ayaga ka horeyno soo annaga lana ma rabo in ayaga ka horeyno taa marka waxay ku tusaysaa in shacabka Soomaaliyeed aynan waxba reebanaynin fursadaasna annaga lana ka rabaa inaan aad maaragta uga shaqeyno oo aan aad maaragta u istitmaafsano oo maaragta dhaqan gelido waxyaabaha la nooga shacabka ay naga sugayaan aan fulino waxaan kala rabnaa inaan isku dardaarano ilaahay inaan ka cabsano salaadeena ilaalino xalana ka rabaa shaqooyinka lagu jiro shaqo sahlan ma waa shaqo keenayso inaad shahiido waa shaqo keenayso inaad maaragta dhaawacanto waa shaqo keenayso in wax walba oo qofka bani aadanka ah u wanaagsanaa oo maaragta ama haday ahaan lahayd inuu ku gaajoodo haday ahaan lahayd inuu maaragta ku daalo haday ahaan wax walba lehwaa shaqadaas marka waxa laga rabaa in iimaankaaga iyo salaadaada iyo soonkaaga iyo cibaadadaada aysan maaragta wax laga gaarin lana ka rabaa taasna si gaaran iskala dardaarmaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa guud ahaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan shaqada dalka laga hayo intaad ka warqabtaanba shabaab waxa ka baxday oo foorsadooda ka baxday ku dhawaad 2,000 oo qofood oo dhaawac iyo dhimasho isugu jiro dhibaatadaasna ay gaartayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu u badiyo ma ahane inay ka yaraanayso u maleen maayo inta ay dariiqadaas ku sugan yihiin waxaan rabnaa iyadan inaan baaq u dirno guud ahaan sida taliyuhu sheegay wiilasha Soomaaliyeed oo maaragta weli isleh amaad maaragta maalmo ku gabataan meesha oo dhiiga iyo maaragta dhibaatada shacabka ay ku hayaan ay sii wadaan wiilashaas waxaan la isaga soo taga nimankan oo shabaab madaxdooda oo Axmed Diire ilmihiisa dagaal kuma jiraan muslimiinta ma laayaan ilmahooda waxay u dirsadaan maxaa la dhihi jiray waxbarashay u dirsadaan magaalooyinkay joogaan dibadahay jiraan oo cali dheer ilmihiisa arki maysid oo dibaduhu ku haystaa nimankaasi dhammaantooda madaxdooda markaad fiiriso ilmahooda luuqaday wada joogaan qof is soo qarxiyay kuma jiro hal canug oo masuul shabaab oo maalihiri waxay dhalay maaragtay in hebel baan ahay oo la yaqaano oo is qarxiyay ma jiro furan mid ku dhintayna ma jiro waxay ku tusaysaa in waxaan ay project ka yihiin ilmaha marka masaakiinta ah oo meelaha lagu soo aruuray waxaan leenahay war isaga soo taga projectigan isaga soo taga waa soo idlaaday waa dhamaaday waqtigii diinta beenta lagu gaban lahaa way dhamaatay isaga soo taga shacabkiina ka mid noqda wiilashiina Soomaaliyeed oo mustaqbalka leh ka mid noqda ka soo taga hadaad ka soo tagi weydaan waxa idin yaal waa in meedadkiina wax walba la soo waro intaas ay idin taalo aada u mahadsantihiin waqtiga kulul awgiis waan soo gaabinaynaa waxa idin kula dardaarmaynaa in shaqada la laabo cadowga eeriidan joogana uusan harsan waan idin kaga mahadcelinaynaa insha Allah waana guuleysanaynaa hadii Ilaahay yiraahdo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar